wanaagsan markale iyo cooking with Xafsa waa qayb aan ugu talagalnay in ay dunto jikada see maaragtay aan u kala habeyn karnaa wax kasta meeshii loogu talagalay aan u dhigi karnaa uga heli karnaa maxaa yeelay Ramadaan ay soo dhow waxa aad muhiim u ah in maaragtay jikada ay ku kala habaysan tahay organize ku tahay oo maaragtay wax kasta meeshii aad rabto aad ka heli karto maaragtay xiisa kuugu yeelato in ay ilmihii ama reerkii wax u kariso bil Ramadaan waayo qofku iska daalan yahay in waqtiga meeshan waa dheeriyahay subxaanallah marka waxaa laga marmaan intaan soonka la gaarin ka hor inaan jikada si fiican isaga nadiifino waxa ugu muhiimsan marka jiko dhan markii la dhaho waxa ugu muhiimsan waxa waaye oo wax kariskaaga xataa kuu fududeynayo inay jikada nadiif ku tahay jikada nadiif ku ahaato alaabta marka iska kala yaree laba fiyoore waxaa maaragtay loogu talagalay in fruitka soo gado caag dhalinyaro loogu talagalay in ku ridato liintii tufaax iyo waxyaabaha la mid oo kaleeto maxaa yeelay hadda friijeerka gelisa ilmihii waa iloobayaan adiga xataa waa iloobaysaa waxaa laga yaabaa friijeerka inay ku balasho alaabtaas marka dhalinyaro qurux badan kasoo gad kan aniga hadda waxaan kasoo gatay winners dukaan la dhahaayo Canada qofkii joogo winners yaala laakiin dukaamo waxaa jiro Pier 1 oo kaleeto Home Sense oo kale dukaamo waxaa jiro alaabo yar yar qurux badan oo jikada la dhigta laga helo kuwaas taga kasoo gata alaabahan oo kaleeto meel kasta yaalaan marka taas waxa u baahan tahay laba fiyoore insha Allah oo jikada aad saarato tubada agaheeda aad ay muhiim u tahay maxaa yeelay qurux ay jikada dhigay jikada inay weynaato muhiim ma aha waxaa muhiim ah inaad qashinka in aad kala yarayso horta qashinka haddaa iska kala yarayso gurigaaga meel kasta ka mid ah qashinka markaa kala yarayso meel qurux badan ay kusoo baxaysaa marka waa idin tusi doonaa kolba sida loo sameynayo laakiin tusaale ahaan haddaan idin tuso wax yar caadadkan aan soo gatay waxaan kasoo gatay $1 ama $3 meeshaan hadda waxaa ku jira waxyaabihi aan ugu talagalay shaax oo kale inaan ku kariyo boqol qaanad ma furaayo meelo badan kama raadinayo meeshaan waxa dhan igu jiraan hadday ahaan lahayd sanjabiishii qorfihii heylkii dhagayarihii wax kasta meeshaan ay ku jiraan meel kale kama raadinayo aagaas imagine haddii aan saari lahaa xagga meeshan ay iga buuxsami lahayd soo maaha kana waxa igu jira xawaajiyaasha kaleeto waa idin tusi doonaa hadhow insha Allah laakiin wixii isla helo isku meel dhig si ay kuugu fududaato maaragtay shaqadaada meesha cuntada la geliya ugu dhib badan marmar qofka intuu soo adeego wixii u yaala ma garanayo maxaa yeelay meesha dhinaca busy ah meesha haddaad busy ka dhigto ama mashquul ka dhigto meesha cuntada la gelinayo pantry haddaa mashquul ka dhigto maaragtay cunto kariskii aan nacaysaa midda koowaad midda labaad waxa karis maba taqaanid waxa guriga kugu yaalo marka waxaa idin tusaaya sidii aad ku arki lahaydeen wax kasta meesha ay yaalaan iskaraab gareeya si aad u aragtaa waxyaabaha cusub oo soo socdo markaas iskaraab gareyso waxa cusub oo soo socda arkaysaa si fudud qofka ugu horeeyo arkaa noqonaysaa dabcan soona soo dhow waxyaabo badan oo maaragtay maasha Allah isku qaboojisa Ramadaankan soo wadaa taraawixda ku fududeynayo insha Allah meesha waqtiga waa dheer iyo waqtiga la soomeeyahay fiirsada wixii talay tusaalahan nala soo socodsiiyay oo maadsantihiin marka walaalahay waxyaabaha aan soo gadgatay idin tusaa insha Allah oo aan isticmaalo dirintaas yarta ah dhulka la dhigto lugaha aad ay ugu fiican yihiin yani meeshaas u badan noon taaganaha markasto waxaan kasoo gataa koosko isbuunya u maleysaa yani waa lagu kor istaagaa aad ay maaragtay u fiican tahay soo gata haddaa awoodaan kooskaa laga soo gataa geedaha marka jikada aad ay u qurxiyaan aad ay ugu fiican yihiin indhahana waa u roon yihiin ayagana haddaa heli kartaan soo gata waxyaabihii Soomaaliya laga keeno dhiil iyo hadday ahaan lahayd waxyaabahaas oo kalena jikada meesheeda kore ku qurxiya ayaad uga heli doontaan waxaa kaloo muhiim ah koobabka soona soo dhow koob dhag ka jaban iyo saxan dilaacsan iyo wax maaragtay insha Allah iska tuura 4 xabo qurxoon maaragtay la soo baxa alaabtaas kor saaran waa kuwii ansalaatada saxamadayda godgodnaa koobabkii biyaha lagu cabaayo waa ujeedaan birtaas marka aan alaabta ku kala habeeyay waxaan kasoo gaday doolarka kasoo gad waxaas dhan ku kala habeey koobabka waxa aan sursurayna doolarkan kasoo gaday ku habee maasha Allah ay ku noqonaya waxaa helaysaa boos weyn oo alaabta aad geliso koobabkii mishaarada lagu cabaayo waa ujeedaan kuwii qaxwada meeshaas sursur waxa dhan waxay kusoo baxayaan qurux maasha Allah bahashaas waa bahashii meesha daawada aan gashto qaanadayda kala waatana oo midaan waxaan ku ritaa caagan waxaan kasoo gatay $1 ama $3 daawooyinkan ku ritaa daawooyinka yaryar oo ilmaha iyo vitaminska iyo waxyaabahaas taas waa taas meelahan kale sida loo kala habeeyaan yani rabaa inaan idin tuso insha Allah waxa ha isku dhaxyaacinina tan waa tii haday aan idin tusayo qorfaha iyo waxaas qaxwada iyo soon waay waxyaabaha oo shaaxa iyo qaxwada iyo waxyaabahaas oo dhan isku meel geli insha Allah
marka haddaa isku yaaciso waxa dhinaca kaa kala dhumaayo. Marka waxaan waxa waaye waa filfishii, waa master seedkii, waa xulbadii, waa food colorkii, waxaasoo dhan oo isleh wixii ilma adeer oo dhan adiga israaci. Hawsha aad ay kaaga fududaanaysaa, waa ogaan doontaan. marka caagagaas aad ay muhiim u yihiin, soo gata, yar yar waaye, raqiis waaye, waa $1.25 u maleyna, wax saas maaha. laakiin waa ujeedaa waxaasoo dhan meesha haddii lagu dhex daadiyo waa ogtihiin hawsha waa adkaanaysaa. istraashooyinkaas kooska waa yaalaan, doolarka waa yaalaan, inkastoo kuwa doolarka nafsaas aysan lahayn. maaragtay bahaladaas aad ay muhiim u yihiin maadaama wax badan la karinaayo, foornada iyo waxyaabahaas gacanta la gashto. huggiskaasna waa kuwii aan koobabka hadda suray oo waxyaabaha la surtaa, doolarka laga soo gataa, lix xabay u xiran yihiin, $25 waaye u maleyna. marka insha allah waxyaabaha qaleylka marka oo hadday ahaan lahayd cambuuladii, salbukadii, masagadii ama qamadigii, waxyaabahaas oo dhan, xabata sawdada, caagi yar yar usoo gado, qaanadaha meesha ugu yar yar is leedahay spaceka si aa u safe garaysid, meelahaasoo kala geli, waxyaabahaas oo dhan maasha allah. marka guri kasta wuxuu leeyahay meel ma aragtay qashin yaroo meel la geeyana aan la aqoonin lagana maarmin. marka meeshaan waa kana, meeshaasaan geliyaa aniga. waa cirbadihii, waa ma aragtay maqaskii, waa kooladii, waa ma aragtay musbaaradii, waxyaabahaas oo kaleeto caagagaasaan usoo gatay. waxaan kasoo gaday ayagana doolarka. meeshaas ku kala habee. waxyaabahan waxaa waaye wixii aan beeraayo insha allah. waa reexaan iyo basbaas iyo maantaan rabaa inaan beero. jikadan ayagana saartaa. buugtii maaragta cuntada aad ku karsanaysay, buugaas mashiinka igula yimid. waxyaabahaas maaragta yararka oo jikada aa uga baahan tahay, recipe-ga buugga iyo waxyaabahaas meeshaas dhigo. qalimada waa muhiim. bahashaas madooba meesha lagu gowlana doolarkan kasoo gata. marka qaybta digsiyaasha sida loo habeeya idin tusayaa. haddii waxaas dhan hal meer lagu shubo waa aragta waa isku dhex yaacaysaa. marka shalfigan doolaraamaan kasoo gatay. waxyaabaha loo dhexaysiiyaa. alwaaxaas meesha yaalana dukaamaan kasoo gatay. waxaa la geliyaa isagana daboolada la geliyaa si aynan isaga kaa dhex yaacin meeshii. marka shalfiga saas markaa samaysid boos badana kuu banaanaanaya. wixii kaleetana waa kor saari kartaa. aad u fiican yahay. alwaaxaas kaleetana koos akiyana waa lagu gadaa, meelo badana lagu gadaa. daboolada maasha allah, daboolka haddaa u heshid wax saas oo kaleeta ah, waxaan ku leeyahay maasha allah wax boos badanaa helaysaa. maxaa yeele daboolada waa aragteen meelaha markii la geliyo inay adduunka o dhan isku dhex yaacayso oo aadan maaragtay wixii aa u baahneed ba aadan armaajada kala soo bixi karin. marka waxyaabahaas oo kale insha allah raadsada si aad u banaysataan space. digsiyaashana midka ugu weyn u hoos mari, midka ku xiga siday u kala yaryar yihiin. digsiyaasha aan loo baahnayn iska kala yareeyo insha allah. qashinka badan hala iska kala yareeyo ama hala sadaqaysto. dad u baahanaa jiro cusub oo waddanka ku cusub. meesha cuntada marka waa tanaa. meesha cuntada waxaa muhiim ah inaad wax kasta aa u jeedi karto si aad wax u kariso. burkii madoobaa, burkii caddaa, caleemihii kala nooca ahaa, baastadii kor meeshaas koraan saartay, bariiskii, waxyaabahaas oo dhan wax kasta inaad u jeedi kartid. waa flagseedkii, wax kasta haddaa u jeedid maalinkaas maasha allah guulaa gaartay. maxaa yeele wax waa karsan kartaa maalinkaas. marka insha allah meeshaana waxaa ku jira waxyaabihii aan keega iyo ku dubi lahaa. baakadihii yaryaraayo muffinka waa ujeedaan. baking powderkii, waxyaabaha dhan oo maaragtay ay isdhehaysa doolshaa lagu dubaa ama buskud meel isugu gee. xawaajiyaasha yaryar oo hindida bariiska aan ku darsado ayagana meelaan isugu geeyay. digsiyaashaydii, bahaladaas yaryar oo aan ku guglay doolaraamihii meelahaasaa laga soo gataa, waa ku guglan kartaa, meeshay kuu nadiifinaysaa. maasha allah digsiyaashayda waa ujeedaan. waxyaabaha korontada marka kii rootiga lagu garaynaayo waxyaabahaas iyo waxyaabihii aan wax ku shiidanayo blenderka iyo ayagana meeshaas isugu gee. dabooladoodana caag isugu gee ayagana. maasha allah space badanaa kuusoo haraayo. marka walaalahay waa idinkaasaa. qaadooyinkana meeshaas aan geliyaa. fargeetooyinka, mindiyaha yaryar, mindidii rootiga, maqaskaas maaragtay muhiim waayo asagana. jikada waxyaaba badanaa u isticmaalaa. halkii xabo mindi weyneyd, mindiyaha intooda badan waa iska xareeyaa ma soo bixiyo, koray isaga jiraan. maaragtay qaadooyinka wax lagu shiilaayo iyo kii wax lagu fidinayo sambuuska iyo ayagana isku meel isugu gee. aluminium foilkii wixii isku maaragtay ilmaadeer oo dhan meel isugu gee. meeshaas waxaan geliya hoose ayadana bataatiga iyo gasacyada. marka bataatiga iyo gasacyada saladaasayta waxaan kasoo gatay doolarka. meelo badanaa u isticmaalaa, waa idin tusi doonaa. waxaan kaloo soo wadaa cajalad frinjeerka sida loo nadiifiyo adoon wax suna isticmaalin insha allah. fiirsada waa cajalada ku xigto. meesha caagan waxaan kasoo gatay doolarka. waa la isdhex gelinayaa. shaambooyinka iyo saabuunta kulli meeshaas isaga aruuriya. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wixii tala iyo tusaalaha idinkaa laydinka sugaa iyo wixii aad rabtaan inaan idiin soo sameeyo insha allah soo sheega. wixii aad rabtaan inaan idiin soo sameeyo waa mahadsantihiin.